isku soo baxa maanta isku soo baxdaan waa musharaxiyo halka ka bilaabay waxaan doonayaa inaan gobol dambe idinkaga daba dhufan xaafadaha dhamaantoodna waxa faraya inay caawa madartii laxooda si dubtaan walaalayaal waxaan idinku baaqayaa maalinta bariye waxa imanaya musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ah musharax xisbiga wadani ah musharax ururka ka ah musharax isbedel doonka oo dhan bari toole waa in muuqaalkii ugu cajiibsanaa soo baxo haddii aad khayriyada soo gaari weydo shanta xaafadood iyo shanta meelood isku xigaaba meherada horteeda ku soo baxaan waa u mahadnaqayaa warbaahinta gobolka Awdal maanta waxaan doonay hal qodob inaan oo kaliya taana ka hadlo qodobkaas oo khuseeya ololaha marka ugu horeysa ilaahay baa mahadlay inagu sameynayno si nabada ololihii doorashooyinka inoogu bilaabmay waxaynu si nabada ku soo dhamaysanay ololihii doorashooyinka soo baxyadii ururada cusub ee la furay sanadkan dhammaan shacabkii ma aragtay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan kii Awdal waxaad u soo baxdeen oo qolo waliba shucuurteeda iyo ma aragtay muuqaalkeeda u muujisay nabada waana arrin muhiim ah oo mudan inaad ma aragtay sida ku sii wadaan tartanka waa ilbaxnimo waa horumar wax la isku culuubana ma aha ma aragtay tartanka ururada iyo qof waliba ururku doono uu yahay xaq buu leeyahay qof walbana dastuurka xaq u siiyay inuu waxna doorto lana doorto inta markaa ka imaado isku soo baxo doorashooyinka kaalin weyn oo muhiim ah ayuu kaga jiraa sababta loo sameeyo calaamadaha sloganiska calanka gaarka xisbi kasta iyo urur kastana maalin gaar loogu sameeyay doorashada qayb muhiim u ka yahay maanta hadalkayga halkan wuxuu daaranayaa hal qodob bari toole xisbiyada Soomaaliland waa maalintii ugu horeysay weeye ee xisbi qaran oo ma aragtay isku soo bixi ololaha uu sameeyo xisbiga bari toole ulihina waa xisbiga kaliyaata ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira isbedel doona waa xisbiga kaliyaata ay ku mudaysan yihiin jamhuurka ama ma aragtay inta ugu badan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel joogaanba sidaa darteed maadaama ay tahay maalin muhiim ah ma isku soo baxuna wuxuu saadaal u yahay doorashada cidda guuleysan doonta maaha sabab dhayal looma sameeynin waxa soo hantiya waxa soo culaysa oo amni leh oo ma aragtay shacab la isku soo saaraya sababta loo sameeyay doorashooyinka adduunyada maaha wax dhib yar waxa loo sameeyay waa meesha laga saadaaliyo doorashooyinka si loo kala guuleysanayo waa meesha laga saadaaliyo xisbiga maanta dabayshu xaqiisa u jirto waa meesha ay shacabku ku muujiyaan dareenkooda maalinta inta ka horeysa codka maaha wax yar maaha wax la fudaysan karo doona karto ma aragtay adoo isbedel doona oo xisbigaaga uu baxayo inaad guriga iska fadhido codkun baan siin doona tiraada waxa ka wanaagsan inaad shucuurtaada muujiso si isku soo baxa weyn wuxuu soo jiidaa shacab kale iyo dad kale oo aan ma aragtay go'aansanin inay codeeyaan ama kuwa xisbi kale ku jireeyso ay ma aragtay soo jiidaa guud ahaan shacabka Awdal oo la hadlayo haweenka oo laf dhabarta gobolkana dhalinyarada oo araxda gobolkana aqooyahanka madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta walaalayaal waxaan idinku baaqayaa maalinta bariye waxa imanaya musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ah musharax xisbiga wadani ah musharax ururka ka ah musharax isbedel doonka oo dhan adoo isbedel doona hadii guriga aad fadhido adoo isbedel doona hadii aad calan baan waayay ama shalmad baan waayay aad uga hadho isbedelka waa khalad waayo maalinta bari toole waxa la tirin doonaa dadka soo baxay intee laagaan baa la eegi doonaa lama eegi doono imisa calan bay siteen imisa calaamadood bay siteen lama eegi doono maalinta codka la tirin doonaa reer Awdal waynu sugno isbedel doon baan laakiin codkeenu had iyo jeer waynu la seexanaa ama waynu ka caajisnaa waxaan idinku baaqayaa codkaan in badan baan ka wada hadalno ujeedada iyo faa'iidada maanta uu leeyahay ujeedadaas oo ah inaad ma aragtay aad ugaaskiinii ma aragtay cod ugu helisaan hadaydu maalinta hore dagaal ugu heli weydeen oo waajiba isku soo baxa maanta isku soo baxdaan waa musharaxiyo halka ka bilaabay waxaan doonayaa inaan gobol dambe idinkaga daba dhufan waxaan doonayaa inaad gobolka ugu weyn noqotaan waxaan doonayaa inaan hal qofna oo ima karayaan guri ku hadhinin xaafadaha dhamaantoodna waxa faraya inay caawa ma aragtay laxooda si dubtaan haddii rabbi idmaayo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyadu waa muhiim qof walba aad nabadgelyada ilaalinaya ama dumar haw ama rag haw haddii aad calan weydo
ha odhanin aniga calan leema siin calan oo caron waayo calanku macna male maalinta lagu soo baxaa la tuuraa codka iyo isku soo baxa ugu muhiimsan intaasaan doonaynaa warbaahinta madaxa bannaan loo sheego musharaxuna wuu imanayaa gobolka oo dhan waa isbedel doon muuqaalka guud baa ugu muhiimsan maalinta doorashada 13 Noofambar inta ka horeysa beritoole waa in muuqaalkii ugu cajiibsanaa soo baxo haddii aad khayriyada soo gaari weydo shanta xaafadood iyo shanta meelood isku xigaaba meherada horteeda ku soo baxaan maanta dhammaan dadku moobile iyo warbaahin bay wada haystaan facebookkaaga ku duub tiktokaaga ku duub moobilkaaga gaarka ku duub ka asxaabtaada ku duub intaasaan doonaynaa idin faro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad mahadsantihiin